anigoo afka golaha deegaanka ku hadlaya waxaan halkan baaq dheer oo murugadiisa wato u jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadan shacabka reer Hargeysa idinkaan idin dhiibaya ciidamada debdemisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito haddii wadadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo aqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu habsaamay isagoo habsaamay oo ordaya haddana markuu soo gaaro dhagax kala hor tagto wuxuu qaban karaa waxa isweydiisaan imaka ninka ciidanka debdemiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafo u badbaadiyo oo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga gubtay guriga kalena dabku inaanu gaarin ka dagaalamo ee naftiisii u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa wuxuu ka halis badan yahay xabadda madaxa u dhigaya dab ololayo cagaal galaya waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayr noqon habeenkii dhaweeyda liinka bileeska intay cibaaro ii korodhay way iga maqnayd ninkii doonayo maalin dab la dagaalamayaan soo booqo halista ay u badheerayaan saymo oo naftooda biima gelinayaan markuu diriiskii degdeg u soo xidhay ee uu maanta ciidanka heegan kale diriiska ma bixiyaan waa heegan inta saacadood ku qoran yahay saas uu sooga yahay marka uu alaamku u baxo daqiil birqsiye gawaarida ku fuulaan isagu waajibkiisa uu gutay gaarigiina uu fuulay gaarigu waa u diyaar waa u cusub yahay biyo waa ugu jiraan wax dhulka yaala ma jiraan markuu albaabka ka soo baxo wadada way ku xidhantay inay yar oo gaari yar wata oo kibray baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqayn oo waliba intuu gaarigiisa hor dhigay intuu gaarigooda jiiro oranaya lacag haysiyaan gaari baa la iga jeeray de arrimahan isku murugsan san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka debdemiska la dagaalamo geesiyaal bay u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagax baynu ugu abaal gudnaa dhagax baynu la dhacnaa warshadaha la isu dhaamo ciidamada debdemiskuna waxay amran yihiin inay ku samraan dhibta imaka waxa la marayaa in madaxda looga digo meesha dab ka dhaco war haddaad tagtaan waa la idin dhagxinaya markaa waayahay intii idin soo gurman lahayd ba haddaad dhagax kala hor tagtaan intii waajibku ahaayna jiingada dabku ka baxaya gamcooda ku qaadaan dad dhagax kala hor tagtaan yaa qaadaya Hargeysa waxaan idin ka codsanayaa maayirkiini maan ahay inay wax inoo hagaagaan baan doonayaa inaan guulaysanaan rabnaa xilkayga waa gudanaynaa laakiin waxaa la rabaa in gacan la siiyo ciidamada debdemiska wadada marka ay albaabkooda ka soo baxaan leerka shitaan war ummaddu dhaqankeeda haddaanay bedelin waxba hagaagayaan waa in loo baneeyaa qoladiina xaafadda dabku ka dhacayna si kasta hadduu dabku inoo dhibaateeyey nimankaasi markaynu annaga naba shishiida haddaad doontaano debdemisku waa inay xeladooda taga waad iska seexataa waad iska soo toostaa markuu soo galo diriisku uu xidhan ilaa inta saacadood isagoo qoraysaa suu heegan u yahay alaamku markuu baxo ilbiriqsi buu gaarigiisa ku fuulaya gaarigiisa waa laga sii shaqeeyey furaa markuu saa u daro ram markaba wuu istaarmaya iyagu xilkoodii way guteen ilaa tahay wax ka dhimani ma jiraan haddee ninkii shaqadiisa u diyaarsanaa suu dab u baktiyo naf u badbaadiyo haddaynu waddadii ka xidhanno oo dhagax la dhacno maalin walba xaaladdu sidan bay ahaanaysaa arrinta labaad ee inay xaafaddani noqoto isku raran waan ogahay meel loogu talagalay hal qoysina kuna ama 10 ku nooshin intii yaraydee soo baxbaxday halkan balliga hareerihiisa ka digteenna xaalkeeda waan hayaa buulkii intaad dhisteen oo kareyseen oo weliba ajaanib ka kareyseen ayuu dhulkiiba isku sii baydiyay go'ay talada la doonaya waxa weeye dawladdu diyaar bay u tahay qorshe inay idin hirgeliso ummadan kala gurto kala meelo ku habboon oo noloshooda ku habboon geyso deedna waxa la idinka rabaa guddidii qorshaha la iman lahayd nolol shaqayn lahayd qorshaha la dejin lahayd ayaa la rabaa ayaa la doonaya iskaashiga dhexdeena ka dhacay inuu xaafadda ku bedeli karayna wadooyinka ku furi karayna haddii aydan nala shaqaynayn oo aydan wadooyinkii diyaar u ahayn aan idinla furno oo markaanu idin aano gurigan kale wadada ka guuro waanu ku ranaa meel baan ku geynaa aad degto aad mustaciliin odhan weydo
oo dabeetana taa la marrayo dabeetana markuu dabku dhaco taado waxba waa naloo qaban waaye war ummadan inaga madax u ah adduunkana sawirada loo diri maayo mas'uuliyaddu anagayna saaran tahay waa gudanaynaa xilkayga laakiin xilkayga waxaan ku gudanaynaa inagoo gamcays qabsanayna aynu ku gudanayna dhaqanka dhagax tuurkaana war xaafadda laga wacyigeliyo xaafadan waa tan iyo guryahaygii dad sharaf leh oo karaamo leh baa ilaahay ku abuurnaan jiray dad qiimo leh maaha waa maxay dhaqankan xubin dhaqanmadan nagu soo kordha waa maxay qofkii idiin gurmanayay adduunyada qofka qof badbaadinaya ama qofka marti u ah way soo dhaweyn jirtay dharkan casa la ilaaliyo si uu inoo badbaadiyo dharkan casi macno badan buu taagay war miyaad idinku ma aragteen nimankan dab baktinaya musbaarka mudaya dabka gaadhaya dhididka ka dhacaya hurdo la'aanta abeenka waxa laga yaabaa xalay imisa saacado baa ku jireen inay halka guri baktiyaan waxa laga yaabaa laba guri oo kala duwan gaadla waaga walaal ugu oran la arrinta laga dambi baynu galeynaa arrinta laga feejignaado